halkan waxaan ku haynaa lacagta akoonka ee ka soo baxday oo ah akoonkan hadda muuqdo oo ku qoran Maxamed Ibrahim Faarax ku magac dheer Maxamuud Fanax oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe oona u soo diray sargaalka booliiska ee Dhamme Cabdixakiin Xasan Carte ku magac dheer Jabuuti waxaan rabaa in aan rahan bulshada reer Jubbaland in lacagtan isdaba ordayso maalmihii u dambeeyay deegaanada dawladda Jubbaland ee xukunto in ay tahay lacagtii ummadda Soomaaliyeed in madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam uu awaalmarin doono sargaalkan wadaniga ah ee diiday burburka dawladdiisa iyo shacabkiisa siisan waaye shilimaadka yaryar oo ay tahay taariikhdu 5 bishii 12aad 2024 taliska booliiska dawladda Jubbaland wuxuu halkan ugu soo gudbinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Jubbaland in ay tahay xaaladda deegaanada mid nabdoon dhammaan deegaanada xorta ah ee dawladda Jubbaland waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Jubbaland in aan u cadeeyo dhacdadii maanta ee ay soo bandhigeen taliska booliiska dawladda Jubbaland oo quseysay sargaal ka tirsan ciidanka booliiska dawladda Jubbaland sargaalkaas oo lagu magacaabo Dhamme Cabdixakiin Xasan Carte ku magac dheer Jabuuti sargaalkaas oo maalmihii u dambeeyay xiriir lala soo sameeyay xiriirkaasna uu la soo sameeyay gudoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe laguna magacaabo Maxamed Ibrahim Faarax ku magac dheer Maxamuud Fanax gudoomiyahaas ama gudoomiyihii horeba wuxuu mas'uul uga ahaa dawladda Jubbaland degmada Badhaadhe deegaanadaasna sidaan wada ognahay waxay ahaayeen mid nabdoon oo xasiloon inta uusan dhaafsiisanin shilimaadka yaryarka ah ee ku eg maalmo kooban ilaa haddana inuusan ka waantoobin inuu xiriir joogto ah ula soo sameynayo laamaha amniga qaybahooda kala duwan ama saraakiisha dawladda Jubbaland asaga oo garab iyo gaashaan kaga helayo dawladda federaalka khaasatan madaxdeeda ugu sareyso oo uu ka koow yahay sida codadkiisaba aad ka maqleyseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Xamza Cabdi Barre waxa ayaan darro ah in dawladda Jubbaland ay ku jirto muddooyinkii u dambeeyay dagaal joogto ah kaga imaanayay xagga khawaarijta waana halka meel ee ka dhacday in khawaarij gaarayso 151 in la soo bandhigo hal meelna lagu laayo qaasatan meesha kaliya ee ka dhacday Soomaaliya in ay tahay Jubbaland gaar ahaan Buule Xaaji waxa xasuusin u baahan in ay imaadeen mas'uuliyiinta ka socota marka ayada ee dawladda federaalka oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda maantana ay ka shaqeynayaan ciidankii ayaga ahaa in ay burburiyaan oo ay ku burburiyaan shilimaad iyo akoono yaani sameynayaan ayada oo ka fiirinayo danahooda siyaasadeed iyo tooda gaarka ahba waxaan rabaa inaan halkan ku soo cadeeyo shakiga iyo tuhunkana aan kaga saaro bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Jubbaland in lacagtan isdaba ordayso maalmihii u dambeeyay deegaanada dawladda Jubbaland ee xukunto in ay tahay lacagtii ummadda Soomaaliyeed la rabay dadka dan yarta ah ee ummadda Soomaaliyeed in wax loogu qabto Soomaaliya maanta waa ognahay waxa ka jiro macluusha iyo baahida
iyo dhibka loona baahan yahay haddii wax la qabanayo meeshay mudan tahay in la marsiiyo laakiin samaysan dhicin waxaa lagu sameynayaa in lagu burburiyo ciidamada geesiyaasha ah ee dowladda Jubbaland qaybahooda kala duwan waxaan rabaa halkan inaan ku soo bandhigo ama aan ku cadeeyo dadyowga shakiga ay kaga jirto lacagta ayada ah halkan waxaan ku haynaa lacagta akoonka ee ka soo baxday oo ah akoonkan hadda muuqdo oo ku qoran Maxamed Ibrahim Faarax ku magac dheer Maxamuud Fanax oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe una u soo diray sargaalka booliiska ee Dhamme Cabdixakiin Xasan Carte ku magac dheer Jabuuti waxaan rabaa in aan cadeeyo in lacagtan aan ku wareejinay akoonka dowladda Jubbaland gaar ahaan wasaaradda maaliyadda inaan islaamaantaba ku shubnay oo ah cadeynta lacagta in aan ku shubnay oo ah akoonkii dowladda ee wasaaradda maaliyadda dowladda Jubbaland ayada mudan iyo meeshii ay marsiin lahayd annaguna waxaan nahay dadkii ka hoos shaqeynayay sargaalkaas wuxuu qabtay shaqo fiican oo qiimo badan mudanna in lagu bagaadiyo ugu dambeyn waxaan rajeynayaa in madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam uu awaalmarin doono sargaalkan wadaniga ah ee diiday burburka dowladdiisa iyo shacabkiisa siisan waaye shilibaadka yaryar ee aan maanta iyo biri ku eg mustaqbalkiisa iyo ayatiinkiisa dambe iyo noloshiisa dambe waxaan baraarujinayaa dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan iyo saraakiisha dowladda Jubbaland in ay ka waantoowaan ama ka digtoonaadaan dhagaraha ay soo maleegayaan dowladda federaalka kana imaanayso labada xafiis ee ugu sarsareeyo dowladda kuna wajahan Jubbaland waxaan u cadeynaynaa in ay tahay Jubbaland gacanteena midig Soomaaliyana ay tahay gacanteena bidix marnaba waxaanan gorgortan ka gelinin in aan siisano shilimaad qadiyadeena iyo deegaankeena iyo dhulka aan u nasab sheegano oo halka aan ku dhalnay aan ku soo barbaarnay waxna ku baranay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh